فيلم عصب فيلم كان wuxuu la magac baxay faqeerkii waqtiga iyo waayuhu saaciday aynu isla daawano waxaan ahay wiil danyara oo geeriskan ka shaqeysto oo nolol maalmeedkiisa halkan ka soo dhacsado iyo aabba ayna halkan u joogin wax tol iyo qaraabana aan magaalada ku lahayn kuwana waa aniga asxaabteeda halkan ayay nolol maalmeedkooda ka soo dhacsadaan maalinkii Wara Zizu birti aawe saaxiib oo tuubada ahayd warbir ma aragay ilaa xaniyo ka shaqaystaniyo living harumat iwarisan rabuku weydistay boss birti ayaa maqan wax lagu tumaayay maalintii u dambeysana ninkan ayaa hayay markaan weydiina ma arkin ayuu leeyahay kaale waxaan birtan ooga qaad ma hubtaa tuubada inuu asaga qaaday haa mudana waa hubaa Cumar xataa oogi asaga inuu bahasha qaaday asagii Cumar ba iigu wac Cumar haa booska ayaa ku wacaya hay Riya adigna booska ayaa ku wacaya niyow boos Cumar waa kana ninka tuubada qaadana waa kana ana shaqa ay taale ninka tuubada meel ku sheego Warazizu tuubada aad qaad la sheegay ma ninka siisid boos aniga tuubo ma qaadin ninkana weynabaya Cumar Salim wuxuu sheegay markuu tuubada qaaday ninkaas inaad arkaysay maxaa ka jiro haa boos run way ninkaas tuubada qaaday meel ku sheego idinka labadiin xageeni weysin aniga xagee ku qaaday tuumbo labadiin nafkiga daaya aan wada shaqeysano waraama labada nin been sheegayo adiga run sheegayo tuubadana adiga qaaday waxyaabo hore garashkan looga waayeen adiga qaaday boos aniga xagee bir ku qaaday tada kala tugmaahay aniga waraa hadaadan tuug ahayn maxaad ugu kullaanaysaa anigoo bir qaadanaya labada nin igu nabeen waxa aniga ay kala helnaan leenahay waayahay adigoo bir qaada ayaad wili sii murmaysaa iga bax waraa meesha iga bax garashka adiga ayaan kula hadlayaa waqtigu kaalikuma dalbalin duruuftuna kula madalan waya hadunidiyo durkiisa dadkuba waa kula qabaaye ka saar noloshaada daydo haquusana daayinkaasho wallaahi yaa buwaay shaqadii geeriskan ka shaqeynayna waa laga soo buriyey waxna gacan kuma haayo yaa saan xal maahan waxaanu nolol-maalmeedkii ka dhigtay inaa raasado waaye nima yaal intaan ka badan ma dul qaadan kari ها سودو مسلم maxaan ka caawiyaa saaxiib nin dhalinyaro ayaa ahay oo muruqiisa maasho meel hore aan ka shaqayn jiro geerisha waa laga soo buriyey magaaladan keligii ayaa joogo wax family aan ku leeyahay ma jirto ama qaraabo ah marka waxaa rabaa inaad shaqo aysiisid shaqo waa aqaanaa weliba farsamooyin badan oo gacanta aqaanaa waxaan jeclaan lahaa hadday macquulta inaad shaqo iraadisid waxaa nolol maalmeedkii ka dhigto yawmii xitaa waxay siisaa qaadanaa ee shaqo leesii haye saaxiib nin dhalinyaro tahay oo ku soo dhaweynayaa laakiin shaqadii qof la siinayo waxay u baahan tahay qof damin inaa haysato waxaad ku garab taagana ma ka arkayo saaxiib san shaqo kugu siiyaa saaxiib adiga dad shaqaysiin karin xitaa meeloona geey xitaa dad rabaa in loo shaqeeyo xitaa ii geey codsi iga tahay saaxiib haye saaxiib kale aniga hadda meelan aqaana ma lahan meelan garanayna ma lahan meelan hadda shaqo aan kaaga raadin karo hadda aan garan karna ma lahan saaxiib way gara lahaanaysaa saaxiib okay waayahay yaaba wallaahi intee shaqa ka raadiya qof walba shaqa weydiisan wuxuu leeyahay shaqa kuma siin karo damiinkiinso
see ka raadiya xitaa waxaa nolol maalmeedkayga dhigto. diinar midaan hayn daayo way u simay. Kani waa Cabdiraxmaan oo ka mid ah hantiilayaasha magaalada, waxayna wada nool yihiin walaashii Samaara. Waqtiyaasha uu firaaqada leeyahay wuxuu waqti la qaataa walaashii Samaara oo ka yar oo aadkan u jecel yahay ayuu waqti la qaataa waqtiyada uu firaaqada leeyahay. aboowe walaashay qaali soo fariiso. والدكي عرديسي ay walaashay subax wanaagsan. subax lamida aboowe ay walaashay iskuul maadays. haa aboowe iskuulka waan aadi rabaa laakiin waxaan u baahanahay lacagan breakfast ka dhigto. ay walaashay ana ku diraa. ay walaashay lacagtii waan ku diray. naftaadana ilaali. aad baa dhankayga qaali uga tahay, naftaadana ka taxadir. hayaabuu waa mahadsanta iskuulkana sii aadaa. ay walaashay Tani waa Maara oo wax barata oo hadda iskuulkii u socoto. ولا شيء قالي waqtiyada ay fasaxa leedahayna waxay caawisaa walaalkeeda Cabdiraxmaan. Maara hadda waxay u socotaa iskuulkii halka ay lugeynin oo gaari maalin walba lagu kaxeeyo iskuulka lagu geeyo, maadaama ay ka dhalatay cid taajiriina ay wada nool yihiin ayada iyo walaalkeeda Cabdiraxmaan. waqtigu lama dhahlan qofne wanaji qalbigaaga wayahaadakiyo xilliga waynuhu ha ku mootiyo walbahaar alle kuma. waa Cabdiraxmaan oo jooga goobtiisa shaqada halka uu ka mid yahay ganacsadayaasha magaalada. ay soo dhow. maxaan ka caawiyaa? waan dhawahay ugaas. waa ku salaama ugu horeen. niyow nin dhalinyaro ahay oo shaqo doona. nin dhalinyaro waxa ay magaaladan kaligiisa joogo. wax tol iyo qaraabana kuma lihi. marka waxaan jeclaan lahaa inaan shaqo yaraas hadday macquul tahay. meelo badanaa niyow shaqo aan tegey. aan weydiistay dad joogaan. qada waa lii diiday. dad damiinay waxbaa ligu xiray. shaqo hore aan ka shaqaynaa oo sama gacaneedo geerasha waa liga soo ceeriyey. marka waxaan jeclaan lahaa hadday macquul tahay inaan shaqo yaraasiniyow. waxaan nin dad shaqaysana ahay. khiyaano iyo waxaasna ma aqaanay. horta nin dhallinyaraa tahay, maadaama codsigaaga ii dhiibatay calooshana igala hadashay waa diyaar, laakiin wax damiina ma haysataa ama qof damiinka noqonaya? ugaas wax dad aan meeshan ku leeyahay male, wax damiin iga noqdana meesto saan hore kuugu sheega waaye. marka waxaan jeclaan lahaa inaad codsigii taxgelisid garabisiisid niyow. nin dhallinyaro ahay, waxaa caloosha ku haysto xitaa ma heli. labada ambar lasoo dhaafay xitaa saan wax maana cunin. saddexda waqti hal maraa wax cunaa. marka waxaan jeclaan lahaa niyow inaad garabisiisid hadday macquul tahay. haye waaye insha Allah, maadaama aad codsi ii dhiibatay waan tixgelinayaa codsigaaga. nambarkaaga ii sheeg iyo magacaaga. okay, magacaygiisiisu waa nambarkan waan kuu qoraa. mahadsanid, anaa ku soo wacaya. okay, waa yahay. waa inaan wacaa wiilkii maanta maadaama aad shaqada iigu badan tahay maalmahan si aan uga yara nasto. asalaamu calaykum. wacalaykum salaam. waa wiilkii shaqada doonaya soomiti dolar. ha ugaas aniga waay. imo meeshii igu imo. hay waaye aniga ayaa ku imaanayo. haa waay maadamiya soo dhow. waan dhowahay. see tahay? waa fiican tahay soomaa? haa. okay, maadaama codsigii dhiibatay codsigaaga waan tixgeliyey, haddana waa soo geli kartaa. shaqadaan rabaa inaan ku kala baro. hay waaye ugaas.
dhankan haddaan kaaga bilaabo kuwan waa protectadii $2 bar waaye soo fadhiga jaajarka waaye waa $3 originalkii waaye kuwa kore saaran waa protectadii dhankan haddaan u leexano halkan kuwa yaala waa earphoneadii waaweynaa $10 waaye kuwan waa memory xambaarka $2 waaye halka kale waxa yaala waa gulubiyo $3 kor waa screenadii shaashada telefoonka la saarayay $5 waaye intan haddaan usoo leexano saacadaha ayaa yaala kuwan waa $12 taas ugu qaalisan $24 waaye si fiicanna u fahanteed ayaan ka rabaa hay'adda soo dhawow meeshan waa meeshaadii waa shaqaynaysaa yoomiya insha Allah 500 qaadanaysaa maalin dheeli aan ku siinaa meeshan waa meeshaadii waxa fahmi wada ani ila soo socod okay inaad si fiican u shaqayso doontida ayaan rajaynayaa insha Allah maadaama aan helay qof shaqaala waa inaan waco gabadhii ila dhalatay halo walaal ii waran fiican walaal iskuulkii ma ka imaad haa walaal ma walaal arrin yar aan ka leeyahay ayo walaal waan ku imaanayaa noloshay wacanay macaan waxyaha ruuxiga miday waalidkay curadiisiyey waalidkay curadiisiyey soo dhow walaashii aniga ku wacay meel baan rabay inaan